Maxamed Ibraahim Warsame Siciid Hadraawi qof ma ahe waa qarwi waa mucjiso soo martay taariikhda fanka Soomaalida ma Afrikada haynu qaadano oo haynu fahanno dadka inaga dhashay inaanu goblan ka dhigin wax badan baa idinku hurdaa abdiray ka dhigo aanu waagu noogu bariyay soo jeediya qalin iyo waraaq waxa la wax lacag aan ku doonaynaa ma jirto waxa weeyaan xilada maqdi ku dhibo oo xil baa ku diray oo soo jeedinaya waajib nolosha ka jira gobonimada u weyn baadidoonkeeda ama adkeynteeda iyo ilaalinteeda Hadraawi hadaan isiraahdo laba eray ka dheh waxaan oran karaa horta marka ugu horeysa waxa uu cid walba kaga soocan yahay maansadiisu waa bad waa malxami waa maanso adduunka oo dhan gacan togaaleynaysa qaybo badan u kala guuraysa ilaa marka ugu dambaysa meeshuu isagu doonayo ku biirto inta uu dhaafi maayo suugaantiisa muggeeda ayaa aad u ballaaran taasuu dad badan kaga duwan yahay ta kale waxa weeye waxaan oran karaa haddaan Hadraawi bartay oo muddo badan wada noolayn saaxiibtinimo aad u qoto dheerna ina dhex martay waxaan ku bartay waa nin isaga iyo maansadiisu isleeyihiin waxa uu Hadraawi caan ku yahay eraygiisa ama qowlkiisa iyo ficilkiisu waa nimay iswaafaqsan yihiin Soomaalida ka sokow Hadraawi waa gabayaa ay bini'aadanka oo dhami wax ka baran karaan waxna ka dareensiin kara maansooyinkiisu tabcan waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta casriga ah Soomaalida sidoo kale waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta bani'aadanka oo dhan qaarad kasta oo ay ku nool yihiin sida bani'aadminimada ah ee uu wax uga tariyay nolosha guud ahaan arrimaha bulshada horumarka jacaylka iyo deegaanka waa fariin uu dhiibo Soomaalida iyo caalamka guud ahaan Maxamed Ibraahim Warsame waa Hadraawi ilaahay u sahlay falkinta asadoodanka iyo anshaxa dhaqanka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi abwaanka weyn ee Soomaaliyeed caanka waxa weeyaan haddii taariikhi jirto gabayga waa lagu sheekan jiray gabaygu muu lahayn luqad lagu qaado raaga ugaas baa u sameeyay hooyadeen raaga ugaas baa bilaabay suugaanteena Hadraawi sumad badan ayuu ku soo biiriyay oo isagu ka kawahaa oo dabadna ay sidii ku socoto dhowr soonaanta iyo urursanaanta shakhsiyadiisu leedahay iyo sida aanu u magaranaysaa dhacda u lahayn dadku ay u haystaan Hadraawi markay maqlaan in nin mar walba xikmadu ay ka qubanayso oo aan afka isu darin laakiin markaad aragto inta uu hadlayo iyo dadka uu la hadlayaa si u kooban yihiin iyo haddana ilhaamka ka soo deexanaya ayaa wax lala ashqarano aad u la yaabaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi shakhsiyadiisa iyo suugaantiisa waxaan anigu u aqaanaa badweyn bilaa xeeliya anu suugaantiisa si aan u fahmo waxaan u kala qaataa saddex qaybood oo kala ah hadduu ka hadlayo tabasho oo tabashooyinkiisa faraha badan leeyahay ka mid yihiin cadaalad darro hadduu tabanayo oo cadaalad doonayo haddii uu doonayo muxuu ahaayay in sidan loo nooliyay si ka duwan loo noolaado suugaantiisa tabashada qusaysa markuu ka hadlayo wax sameeysa malaha Hadraawi waxa loogu tala galay inuu town ka hadlo haddana markaad aragtay isagoo ka hadlaya tala bixin suugaantiisa tala bixinta ee uu tala bixin soo jeedinayo iyadana waxa soconaysaa malaha waxa loogu tala galay inuu taa ka hadlo haddana markaad aragto suugaantiisa tilmaamaysa abuurta iyo quruxda hablaha iyo kalgacalka iyadana ma axlaha waxaad garan karaysaa yaani inaad ninkaas yahay nin qalbi nool leh Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxaanu wada kulannay 1969kii tilmaamihiisa laba qodob oo degdeg ah aan uga xuso oo aan ahayn midi waa sida uu u yaqaano ama uu ugu tolaado waxa saaxiibnimada la yiraahdo iyo habka uu ugu gaadiido oo ay ku tahay oo macno leh oo uu yaqaan waa midda labaad ee waa halabuurka uu ku socmay oo gooniya maaha tirada intuu ka yiraahdo
maaha ereyada uu isticmaalo dadku joogaan qof waliba wuxuu leeyahay madal khayaal waxa carabiga lagu yidhaahdo ee fogaalka humaaga fogaal humaaga ayaanu ku tilmaansanaa wax yar oo hadduu tilmaanteeda halka uu u marayo hadduu wuxuu rabaa inuu sheego qofkaasi isla weyn iyo isla weynadu dhibtay leedahay qofka tegey ee ku geeyey ee ku yidhi isla weyn hankeeda wiil aan jaraysnayn ugu wara maqaaroo lugta webi u geliyee xagguu ku geeyey wuxuu leeyahay suugaantiisu mar walba waxay caan ku tahay waxa qurux kastuu yidhaahdo tabane la yaab leh buu ka dambaysiiyaa oo optimistic inuu qaybtaasi aad ugu raad leeyahay baanu ku tilmaannaa inta uu jeegaan quruxdeeda iyo siday tahay sida uu u cabbiray oo ku yaalla iyo ugu dambayntii wuxuu yidhi kala dhiman adduunyoy maxaan kaaga dhololaa hadraawi uu ka xeel dheer yahay in lagu astaysto abwaan gabayaa ama shakhsiyad waa manhaj nololeed soomaaliya oo dhammaystiran waa wehel aad weheshan karto oo wax kaaga sheegi kara weji kasta iyo marxalad kasta oo nololeed oo aad ku sugan tahay waxaanan ahay dadka ka marakacaya abaalna u haya juhdiga iyo hawsha uu geliyey af Soomaaliga falsafada islaamka wada deganaanshaha xorriyad u dagaalanka iyo xaq u dirarka waxaan ka qaadanayaa waxbarashada tuduc yar oo gaaban uu ka tiriyey gabaygiisii dheeraayay dabahuwa iskuuladu waa dayeen damiinimada ay dhigaan dantay uma soo lugo diktoor cadow sideen digri cadow sideen hadraawi wax weeyaan waa deeqsi waa niman adduunyada waxba wallahi wax dhaqo wax dhigo wax dhiso biri maxaad cuni waxa la isku wada leeyahay adduunka dhalanteedka hebra hadraawi shaqa kuma laha hadraawi waxa weeye nin naxariis badan weeye dadkuna aanu kala xigin waxa weeye nin cilmi iyo caqli iyo garasho iyo naxariis iyo wadannimo iyo karti isku darsaday waxa kaaga filan wuxuu yidhi lacagay wid lagu yidhi wadda hayla soo gelin hayga jabin weysida guud